haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirso. Sheekadani waxay ku dhacday nin magaciisa la yiraahdo Cusmaan. 2018 Cusmaan wuxuu iska joogay gurigiisa, saacaduna waxay ahayd 3:00 Cusmaan asxaabtiisa ayaa u waceen 3:00 hadii la gaaro xaflad ayaa laga wacay oo asxaabtiisa ay markaas dhiganayeen. Cusmaan xilliga markii la gaaray uu soo baxay si uu asxaabtiisa u aado, kadibna wuxuu soo maray wadada, inkastoo wadadii ay cidlo ahayd haddana mugdi ay ahayd. Cusmaan inkastoo wadada ay mugdi ahayd xoogaa baqdin ayaa gashay, socodkii ayuuna buubsiyay si uu xafladda si degdeg ah ku gaaro. Cusmaan markii xoogaa uu socday ayuu dhankiisa bidix wuxuu ka dareemay shanqar. Markuu fiiriyay wuxuu arkay in uu qof taagan yahay meeshaas, qofkaasina madaxa ayuu derbiga ku hayay. Cusmaan wuu fahmi waayay qofkan waxa uu meesha ka sameynayo, laakiin Cusmaan waxa uu rabay wadada kaliya inuu gudbo si uu u gaaro meesha uu rabo. Cusmaan isla markiiba wuxuu isku diyaariyay haddii ninkan uu ku soo boodo sida uu iskaga daafici lahaa. Kadib agtiisa ayuu soo maray, ninkiina wuu soo fiiriyay. Kadib Cusmaan ninkii si nabad leh ayuu ku soo ag maray, wax dhibaatana uma geysan. Laakiin Cusmaan gadaashiisa ayuu shanqar ka maqlay, kadibna wuxuu fiiriyay gadaashiisa, wuxuu arkay ninkii uu ku soo socdo. Sidoo kale ninkii wuxuu watay mindida basasha lagu jarjaro. Kadib ninkii hal mar ayuu si xawli ah ku soo booday si uu Cusmaan mindida u geliyo. Laakiin Cusmaan ninkii gacanta ayuu ka qabtay, sababtoo ah hore ayuu diyaar u ahaa in uu ninkan iska daafaco. Ninkii mindida xoog ayuu u soo riixayay. Cusmaan xoogaa karatay ayuu yaqaanay oo ninkan iskaga daafici karo. Sidoo kalena wuxuu ka baqayay ninkan inuu naftiisa dhibaato gaarsiiyo. Isla markiiba Cusmaan wuxuu ogaaday ninkan hadduu dili waayo in asiga la dilayo. Kadibna darba ayuu beerka u geliyay, feer ayuuna wajiga u garaacay ilaa oo madaxiisa ninkii dhiig ka imaado. Laakiin ninkii weli mindida ayuu hayay, wuxuuna isku dayay inuu Cusmaan dilo. Kadibna ninkii wuxuu isku dayay inuu Cusmaan gacmihiisa ka baxsado. Cusmaan wuu sii xanaaqay, kadibna feerkii ayuu u laba jibaaray ilaa ninkii ay mindidii ka faniinto. Kadibna wuxuu isku dayay ninkii in uu garaafeeyo Cusmaan. Cusmaan aad ayuu u sii xanaaqay, xanaaqii ayaana ka tira batay. Kadib madax ayuu dhagax ugu dhuftay. Cusmaan ninkii wuu isku hilmaamay siduu u fiirayay. Kadib ninkii wuu sooxay. Cusmaan markuu ogaaday inuu ninka sooxay wuu ka soo istaagay, laakiin Cusmaan wuxuu ogaaday in gacmihiisa dhan ay wada dhiig yihiin. Sidan uu yahay Cusmaanne wuxuu ogaaday in uusan xaflad ku tagi karin. Kadib wuxuu tagay meesha musqulaha oo public ah, kadibna xoos kaga soo dhaqay gacmaha. Kadib Cusmaan wuxuu isku dayay in uu gurigiisa u laabto, sababtoo ah dharkiisa ayaa dhiig gaareen. Cusmaan asigoo gurigiisa u soo socdo ayaa wadada wuxuu ku arkay isla ninkii oo meesha taagan, wajigiisana sidiis u dhiigayo. Ninkii wuxuu taagnaa guriga Cusmaan uu degan yahay albaabkiisa. Kadib Cusmaan ayuu soo fiiriyay. Cusmaan wuxuu arkay ninkii in uu isha ka baqsan yahay, sidoo kalena gurigiisa albaabka uu hor taagan yahay. Kadib Cusmaan wuu baqay, meeshiina wuu ka cararay, wuxuuna u tagay walaashiis gurigeeda oo meesha ka dhawaa. Cusmaan walaashiis waxay aragtay Cusmaan oo dharkiisa dhan wada dhiig ah, kadibna waxay ka wareystay arrinka ku dhacay. Cusmaanna wax kasta ayuu u sheegay. Kadib booliiska ayay wargelisay, booliiskii ayaa imaaday. Ninkiina wuxuu isku dayay inuu la dagaalamo booliiska, laakiin sabaax duureed ayay ku keeneen, gacmaha iyo lugaha ayayna ka xirxireen. Kadib waxaa la ogaaday ninkan inuu yahay dilayaasha kuwa ugu halista badan, wuxuuna jarjaraa xubnaha bini'aadanka. Kadib waxaa loo qaaday ninkii xabsi ku yaala duurka, waana laga fogeeyay magaalada. Laakiin ha hilmaamin.
싶을 때도 나는 왜 기억나지 너의